waxaasna halkaasi ka hadlay mas'uul ka socday shirkadda Omar iyadoo qayb ka ah gaarsiinta deeqaha raashinka ay loogu talagalay bulshada jilicsan ee gobolada Gabiley iyo Hawd waxaana uu ka warramay doorka ay ka qaateen gaarsiinta deeqaha raashinka ee ka socda guud ahaan gobolada dalka Soomaaliland anigoo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Omar International Company waxaan si mahadnaq u jeedinayaa gudida abaaraha iyo kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha Cabdiraxmaan Daxood oo si wanaagsan oo la shaqeeyay haddaan nahay shirkadda Omar International Company waxaanu xirfad sare u leenahay ama aqoon u leenahay nidaamka logistics-ka oo aanu qabanayno si aad iyo aad u qurux badan iminka si wanaagsan baan ugu shaqeynay waxa maanta hawsheedii lagu jiraa gobolada Hawd iyo Gabiley oo aanu si qurux badan u gudbinay sidoo kale gobolada kalena waanu hadii la yiraahdo waanu qabanaynaa waanu gudbinaynaa insha Allah waxaan mar walba la shaqeyn doonaa mas'uuliyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan hawlaha noocan oo kala mar walba waxaan diyaar u nahay in la shaqeyno insha Allah